Soomaalidu afar qabiil oo isla eg maaha suurtagal maaha afar shay oo natural phenomenon isla eg inay jiraan mid un baa badan Soomaa ani hadda kaasa badan ma dhahay dagaalkii cid kuma guuleysan cid lagu abaal marinayo ma jirto you go home do your homework wadankeena dagaala ka dhacay dagaalkii markuu ka dhacay caasimadda uu ka dhacay waa lagu kala tagay markii lagu kala tagay nin walba degmadii oo markii hore ka yimid oo aaday sababtu uu aadana wax kala maaha wuxuu aaday caasimadii wuxuu kula yahay amni iyo cadaalad oo xalay aadan uga sheekaysanay wasiirka iyo tiimkaas toban sano ayaan dagaalamayna oo qabiil u dagaalamayna oo wax walba sameeyna oo kismaayo tagna oo ka soo noqono oo xamar tagna oo gaalkacay tagna oo beledweyne tagna oo xudur tagna oo baydhabo oo gaajo ka dhacdo wax walba waa sameeyna aan xasuustaa nin muxuu ahay reeraan isla Mustafa Shicilme oo gabiyaa hadda Sweden jooga oo aynayo yani xamar wixii ka dhacay sida magaaladii quruxda badneed iyo Bankuweer iyo Ceel Gaab iyo mataqaana Cafe National iyo waxa lagu dhigay ka sheekeynaya waxaan arkay Sahal Macalin Ciise reer Baydhaba oo heesaha Soomaalida aniga aan u jeclahay nabada naas luuga leh ka sheekeynaya waxaan arkay Yamyam Allah u naxariistee oo muxuu ahay aniga waxa marmarka qaarkood waxa ilaahadaa muxuu ahay inkaarti Yamyama baan ugu dhacday magacyada Ilaahay buu ku inkaaray ya wuxuu war saayeel oo saayeel oo saayeel oo saayeel hadaad yeeli weysaan markaas magacyada Ilaahay buu ku inkaaray markay intaas u dhacday finally waxa la yiri hab qabiil waxa lagu qaybsado waxaan rabaa dhalinyarada odayaasha waaweyn ma dhalinyarada oo xumaatada qabiilka arkay yaa rabaa inaan u sheego qabiilka ma aha wax xun qabiilku Soomaali haddaan nahay waa wax aan ku kala joogno waa xeerka aan ku degannahay waa xeerka aan isku guursanno waa xeerka dhiig aan ku kala qaadanno waa xeerka baadida geelo hadduu naga luma aan isugu soo celinno waa xeerka aan muxuu ahay godobta iyo ku kala qoranno waa xeerka aan abaalka iyo mataqaana ku aan isku gashanno waa xeerka aan ku noolnahay aniga waxaan soo arkay waxa laga sheekay ICRC waxaan soo arkay wadamo waxaan ka soo shaqeeyay dagaal ka dhacay oo aan qabiiladu aysan jirin Rwanda kamida waxa Democratic Republic of Congo kamida waxa kamida South Sudan يعني waxa ka dhacay oo dadku yani ka dhacay aqligaada diida waxa hadda ka hor laga sheekay islaam baa raali ahaada moogta Soomaalida waagi hore wixii xogaa faniyaba xogaa islaamaha lagu riixi jiray moogta marka waxa la yiri islaam baa raadiyo dhageysatay markaasay waxay maqashay Suez Canal lagu dirirayo halkaas balaaya dhacdayo markaasay waxay tiri beeyo odayaal kala qabta male miya meeshaas dagaalkaas ka dhacay Soomaa qabiilku waliba gaar ahaan waxaan ka xumahay odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo wabarrada iyo ugaasiyada iyo beeldaajiyaasha inaan la acknowledge gareyn doorkay noo hayaan oo lagu sifeeyo inay yihiin muqarrabiin madax ka ah institutionskii naqarribay ma hasaas waa dadka aan ku kala joogno waay annaga ciladu annaga xageeno waa koow waxa la yiri marka qabiil waxa lagu qaybsado koow waxa la yiri maadaama la diriray la kala aamin baxay dawladna in la dhisa la rabo sidee wax loo dhisaa Soomaalidu waxay yiraahdeen wariyaa midida daabkeeda yaa loo dhiibaa
يعني waa nasiib darro in Soomaalidu dawladnimadii ku sifaysay midi la rabo in balaayadeeda muxuu ahay qof bal almiina loo dhiibo loogana badbaado وهذا دad dagaalmaya loo dhiibaa waxa la yiri waa leedii wada dhiiba kulliin midida isla qabta waxa la sameeyay by design waxa laga yaabaa inaad ku wareersantihiin by design system isku wada takraaran oo ayna cidka kaleeto aysan ka awood badnayn fariinta kale oo la soo diray waxa waaye waxa la yiri 4.5 wax loogu qaybiyo aniga sida la sheegay Soomaaliya waa ka soo shaqeeyo from Calula ila Ras Kamboni from Calula ila Zeyla maabka Soomaaliya hadii hadda la soo hordhigo tuulo walba iyo ceel walba qabiilka degan ku dul qor hadii la rabo ku dul qori karaa Soomaalidu afar qabiil oo isla eg maaha hatta dadka oo statisticada dhalinyarada dad statistica bartama jiro suurtagal ma afar shay oo natural phenomenon isla eg inay jiraan mid un baa badan Soomaa ani hadda kaasa badan ma dhahay laakiin fariinta maxaa waaye fariinta waxa waaye ma kala badnidiin ma kala adkaanina dagaalkii cid kuma guuleysan cid lagu abaal marinayo ma jirto way isla egtihiin way isku qasbantihiin you go home do your homework